Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan igu soo bandhigaynaa programmada dadka indhaha la ay Windows-ka u isticmaalaan programmada loo yaqaano screen reader-ga. Koogooga ugu fiican ayaan kan igu soo bandhigaynaa oo fikrad guud ahaan naga siinayna meesha laga soo dejiyo iyo sida uu u shaqeeyo. Programkan aan sheegayna waxa weeyaan waa program inta badan dadka indhaha la bilaash ku isticmaalaan. Waa program aad iyo aad uga fiican kuwa Windows-ku shirkadda Microsoft-ka ay computer systemadeeda ay soo raaciso. Waxa laga heli karaa website kan horta waxaan ku qoraynaa baalka magaciisa waxa la yiraahdaa NVDA ama NVDA magaran ingiriiska sawa la yiraahdo ma maraynaya access https Link anmelden. Sprungmarke Suche Google Grafik Link weiter. Sprungmarke Hauptsuche. V-Access besucht Link Überschrift. kaas weeyaan. Marka hore waxaa habboon qofka indhaha la inuu qof wax arkaya uu soo dejiyo. Programkan wuxuu ku fiican yahay luqado badanna uu leeyahay, laakiin waa inaad waxyaabo badan aad ku dardarsatid maaha sida Kamego kale maaha, waayo Mego la socdaa oo adigu waa uu ka fiican yahay caadi ahaan markaad Mega lagu isticmaalayo. Laakiin kan Windows-ka waa program bilaasha oo programmada screen reader-ga ee dadka indhaha la isticmaalaan ku ka fiican ma jiro. Marka kan baa ugu fiican. Waxa kale waa lacaga garanaya oo inta badan dadka xafiisyada ay kaga shaqeeyaan dadka indhaha la ama dhulka wax lagu dhigto laga isticmaalo. Waxa weeyaan kaasi waa JAWS program la yiraahdo oo la qaali weeyaan 600 maxaa la yiraahdaa 1600 euro waxaan kaas oo kala la siiyaa. Laakiin kani waa bilaash, JAWS-na kama dhaco, aad iyo aadna ugu fiican yahay. Marka website kan baa galaynaa. Anklickbar Sprungmarke Banner Sprungmarke Navigation Link Donner. Waxaad ka soo dejinaynaa matalan qofka indhaha qaba waa inuu soo dejiyaa version-ka ugu dambeeyay update-ka ugu dambeeyay lahaa. Sprungmarke Haupt Download NV. Programka midda kale uu leeyahay waxa weeyaan markastaba update baa lagu soo diray, update bilaasha oo Microsoft markay systemka ay jadiidiso la soconaya oo la qabsanaya. maadaama aan u soo dejiyay uma baahni mar labaad inaan soo dejiyo corkan imka arkaysiin waa cod Jarmala, laakiin website-ku waa website Ingiriisa oo waxa iskale maxaa la yiraahdaa shirkad waa organisation ka jira wadanka Australia ayaa sameeyay, laakiin adduunka ku dhan ayay luqadahooga waxa adduunka inta badan dadka indhaha la waxay isticmaalaan kani weeyaan. Marka ugu horeysa soo dejinaysid bahalkan waa inaad waayo maadaama organisation uu bilaash dadka ku siinayo waa inaad mucaawino ku weydiisan 10 euro 30 euro aad wax qof kasta wuxuu doono iyo ku sameeynaya mucaawino ayuu siinayaa. Matalan koontadaada gelini intaas baan mucaawino ni siiyay aad qoranaysaa, ama haddaad doontid ableyn baa ku sameynaysaa waxa oranaysaa waxba nima siinayo waad iska soo dejisanaysaa adigoo xitaa aan wax mucaawino aan bixin. Markaad soo dejisid anigu imika kan waxaan ku xidhay luqado Jarmala ayaan ku xidhay, laakiin luqadiisa asalka programka markaad soo dejinaysid ama loo soo dejiyo ee shidatid waxa kuu soo duldegaya desktop-ka sambu kuu soo degayaa waa programkaas weeyaan NVDA 2 von 5. NVDA waa kaas weeyaan. Kaas imika anu luqadan hadlaysa Google Chrome Audacity 4 von 5 waa Jarmal, laakiin codkani maaha codka asalka ee programkan NVDA uu leeyahay. Waxa weeyaan waa codka shirkadda Microsoft ay soo raaciso systemyadeeda. Waxaan ku xidhay programkan baad ku xidhaysaa. Matalan codkan Microsoft uu ka saafisan yahay kani codka caadiga programkan uu leeyahay
مثلا waxaan tusi programkan codkiisa asalkii waa sidan Sprachausgabe. Keine Microsoft Speech API Version für eSpeak NG. waa codkaas weeyaan waa cod sida robo oo kala waa codkaas oo kala weeyaan laakiin waxa samayn karaysaa settingkiisa markaad geshid ayaad ku oran karaysaa matalan computerka Microsoft codku haysto oo ka saafisan codkan oo kanaan hadda aan isticmaalayo kala ah iyaad oranaysaa matalan codka aan isticmaalo laakiin programku waa programkii ee codkii iyaad ka soo amaahanaysaa shirkadda Microsoft shirkad computer kastana codkan Microsoft laba ku jirta kaas iyo kan naagta matalan kaas codka naagta kuwaas baad ka soo amaahanaysaa markaas aad ku xidhanaysaa programka laakiin programku waa programkiisa sheegay laakiin codka waxa iskale Microsoft-ga haddii codkan ku caajabin waayo waxa jira codad lacaga matalan aad soo ka iibsanaysid shirkado sida Neos Acapella matalan aan waxaan soo qaatay shirkadan Acapella ay samaysay Acapella waxaan ku xiray Ingiriis iyo Carabi matalan markaan tan aan Acapella-ga carabigiisa gala waaga carabi maadaama uu systemka computerkaygu uu yahay Windows 10 Jarmal uu yahay wixii Jarmalka ahaa iyo af Carabi iyo af Latin English oo kale ku akhrinaa English xitaa hadaan ka dhigo Ingiriisku sidaas si leeg isna wuxuu ugu akhrinaa af Jarmal buu af Ingiriisi waa af Jarmal buu af Ingiriisi ku akhrin matalan Peter 22KHQ desktop list Google Chrome 3.5 waa Google Chrome 3.5 weeyaan isagu wuxuu leeyahay 3 af Ingiriisi ku akhrinayaa fontina af Jarmalkii ahayd iyo isna leeyahay 4 Google Chrome 3.5 leeyahay marka waxa weeyaan waa iconkii saddexaad marka waxa meesha ku jirna 5 icon inay yihiin buu sheegaya marka haddaan imika website Ingiriisi aan furo website Faransiis aan furo ama Jarmal aan furo wuxuu igu akhrinay luqadii Jarmalka iyo Faransiiska ahayd buu igu akhrinaa sida maxaa la yiraahdaa Ingiriiska oo kale wuu igu akhrinayaa laakiin website Ingiriisi haddaan galo si wuxuu akhrinayaa adoo aad iyo aad saaf ah matalan waxaan galaa programka meeshaan ka soo dejinay NVDA-ga oo ka sahlan buu akhrinaa download NVDA Urbo Schriftgebend download NVDA 2017.4 the new to NVDA link features and link system requirements shout to download oo akhrinaya Ingiriisi caadi ku akhrinaa martii qofka Ingiriiska yaqaan wuxuu akhrinaa si oo aad iyo aad u fahma waa fasiix luqadu maaha sida programka asalkiisa ku jirta ee sida robo oo kala ama programka wuxuu leeyahay dhowr luqadood iminka luqadii asalka ahayd ma ku soo celinaya soo iska lahaa marka programka wuxuu lahaa iminka haddaan yara tuso Einstein ama settingkiisa haddaan tuso luqadaha uu leeyahay waxay kala yihiin مثلا wuxuu leeyahay Microsoft steht API Version Windows ohne Tonbestimmen. Keine Sprachausgabe. With my Acapella Ausgabegerät. Kombinationsfeld Microsoft Soundmacher reduziert halt. Sprachausgabe. Einstellungen allgemein Sprachausgabe. Allgemeine Einstellungen. مثلا journal settings marka gashay waxaan anigu wuxuu soo saaraa waa Jarmal weeyaan laakiin Ingiriiska settingkiisa oo kale ku iyo daado luqadii aad ka dhigto ku soo saaray imka journalka waxaan rabaa inta luqadood ee programkan dadka indhaha leh ay ku isticmaali karayaan matalan waa kan luqadahu isticmaalayo xagga saraan ka soo bilaabayna matalan
luqadaha shiinaha noocay kala yihiin matalan mandarin maxay shiinaha waddanamada indha yarta luqada shiinaha dialectiga ku wada hadlaan oo ku dhanba ku jirta matalan waxaas oo dhan Turkish, Tamilish, xitaa Axmaarish Isländisch, Indonesisch, Ungarn, Kroat, Hindi, Hebräisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Persisch, Spanisch, Spanisch, Englisch, Griechisch, Deutsch, matalan ka isticmaala kaas weeyaan Jarmalka laakiin waxaasoo luqado oo ku dhan aad arkaysiin baa ku jira markaas saas baad u isticmaali karaysaa wax kastood geshid oo Windowsku leeyahayna degdeg baa u isticmaali karaysaa markaad aad taqaanid navigation ama sida loogu socdo computerka keyboardkiisa iminka intaas baan kusoo koobayaa insha Allah waxaan insha Allah samayn doonaa videoda soo socdana sida settingkiisa loo dhexgalgali karo matalan luqadaha kale fasiixa aan u soo dejin lahay iminka intaas baan ku dhameynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.